anigoo karaamadii hooyanimo haysto oo ilaahay ii yeelay haddana aanan haysanin wax hooyo igu dhahayo muddo 10 sannadood ah cunug aan dhalayna korkeyga ma saaranin. intaasoo dhan waxaa ii keenaa waxay tahay wax aan aniga gacmahaygii aan ku samaystay aana nafsadeeda ay tahay mid aan ku aaneynayo mar walbo. haddaba walaaleyga qaaliga maanta waxaa idin wadaa qiso xanuun badan cibro qaadashana idin noqon doonto insha Allah iyo dad badan oo Soomaaliyeed. marka waxaa jeclahay inaad muuqaalka share gareysaan si naxariis lana u daawataan insha Allah. wixii ra'yi ah iyo maxay ahayto wixii markaas idinkana ah kuwaan laheedeen qaybta commentiga insha Allah nagala qayb qaata. عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا قالك إيكو حرن جنكي مناسة ميلو البادون كجوكتان إنا يبو عافمات قبتانا رجينا فضلنا هدي إيتا مركو غوريس أجانل كينا صوبو قنيسة وحكا عدسانا إنا سبسكرايب نوصارتو قنبالي الكنا آفورتو سي مقال والبو كوك صودعو مقال كنا لايكتا نوصار لايكتا هنقي إلاوينا آتي آدا أمهات سنتيهين intaa gadaalka ilaawi la tadab iska saar like-ta commentiidin quruxda badan la dhiirgelinta iyo ducooyinka isugu jiro iyo walaaltinimada mar walba ay muujinaysaan aad iyo aad u mahadsantiin iyo sida wanaagsan waqtigiina ii siinaysiin mahad celintiina mar walba aniga kama daalay maxaa yeelay waxaa tihiin dad waqtigoodii isiiyay qofka bini'aadamkaana waqtigiisa wax kamid walow xitaa haday tahay ilbiriqsi waa ina u mahad celisaa. aad iyo aad u mahadsantiin idin la abaalkiina jannatul firdaws Allah ka dhigo isku soo laabasho wacan waa mar kale iyo qiso kale oo cusub. qisadana waxay wadataa mucjisooyin aad iyo aad u badan. marka waxaan jeclaa videogan intii aad share gareyn kartaan inaad share gareysaan doo Ilaahay idmo. qisadan waxaana la qaybsanaysaa baay Soomaaliyeed ee ku dhacday waxyaabo badan ayaana ku dhaceen gabadhaan waxyaabo badan ay maanta ka shalaynayso uga digayso dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed ay uga digayso insha Allah. marka gabadhan walaasheena qisadeeda waxay ka soo bilaabatay xilligii yaraanteedii hooyadeed waa ay geeriyootay aabaheedna waa geeriyooday. markii hooyadii aabihii ay wada dhinteen gabadhan nolosheedii waxaa la wareegtay oo kafaalo qaaday habaryarteed oo ahayd hooyadeed gabar la dhalatay ay isku hooyo isku aaba yihiin ahaydna markaas da'di markaas hooyadeed ka weyn. gabadhan waxay leedahay aniga markaas waxaan joogo oo aan ku dhashtay gobol ayaan ku dhashtay ayay leedahay. kadibna waxaa lay keenay dhahday magaalada Muqdisho ayaa lay keenay si habaryartay oo la noolaado. habaryartay caruur ayay haysatay dhahday aniga iga waaweyn qaarna waxay dhashay dhahday anigi yani bacdigeyga ama aniga gadaasheeda markii lay keenay kadib ayay dhashay ayay leedahay. habaryartay waxay dhahday mar walba way iga jecleed ilmaheeda ayada ay dhashay wiilasheeda iyo gabdhaheeda number 1 waxay ahayd qofta markaas ilmaheeda oo gaarka ah naxariis ahaan ay tiri hooyanimo ahaan mar walba waxay isku day jirtay booska hooyaday in ay buuxiso. waxay igeysay dhahday dugsi quraan ay igeysay waxay igeysay dhahday iskuul ay igeysay yani dadka xaafadda waxay dhahday igama kasi jirin inay habaryartay ay tahay hooyadii aniga layga beeray ee i dhashay naaska ii dhigtay sida markaas naxariista iyo jaceylka ee iigu muujinaysa ayay leedahay. haddaba gabadhii waxay tiri waxaa dhacday in markaan aan soo weynaado oo iskuulkii aan bilaabo iskuulkiina waxay dhahday waxaan kaga baxay dugsiga sare oo waan dhameeyay. kadib markii aan dhameeyay waxay dhahday xogaa maamada waxay dhahday habaryartay ahayd ma aysan ahayn maamo bixin karto dhaqaale markaas jaamacadda ee igaga bixin karto oo aniga heer jaamacadeed ma aan gaarinay tiri waxbarashadeedii waxaa uga soo gabagaboobay dugsiga sare ama waxaan yani aan ku ekeeyay heerka dugsiga sare. gabadhii waxay dhahday guriga ayaan joogay maamadii waxay bilowday inay markaas ii soo bandhigto in wiil kamid ah wiilasheedii in ay igu dareyso si aan aniga banaanka uga bixin oo guriga le aan ku noolaado maadaama aniga ay dhahday ammaano aan ku ahaa habaryartay oo hooyaday markii ay dhimatay kadib ayada ay kafaalo qaaday jaceylka ay ii qabto dartiisa ayaa waxay jecleysatay inay igu darto
wiilasheeda mid ka mid ah. habaryartay markii ay sidaas dhahday waxay dhahday gabadhan ma ahaynay tiri qof markaas ku dhihi karto aniga guurkan diyaar uma ihi amaba guurkan ma rabi ma dhihi karinay tiri. habaryartay aad iyo aad uga dambeeyay hadalkeedana inaan jibiyo ma jeclaan jirnay tiri. sababtaas darteeda waxa igu kaliftay inaan guurkii waafaqo. gabadhii waxay dhahday waxaa dhacday markaas in wiilkii habaryartay dhashay aan isguursano. markii aan isguursanay kadibna gurigii qayb ka mid ah aan dego. guriga waxay leedahay guri aad iyo aad u weyn oo ahaa. kadib waxaa dhacday leedahay in wiil kale oo habaryartay ay dhashay asagana uu guursado oo xaaskiisii ayadana la soo dejiyo guriga. kadib waxaa dhacday leedahay in xoogaa isku dhac iyo khilaafaad oo meeshii ka dhacay. habaryartay waxay ceebsatay in markaas gabadhan kale maadaama ay yani naga tahay familka banaankiisa oo yani wax qaraabo iyo waxyaaba siyaabahaas aysan jirin yani isku keenayo. waxay go'aansatay in aniga banaanka lay dejiyo. kadibna gabadhaas sida guriga ay u joogto. gabadhi waxay dhahday sida ayaa banaanka loogu dejiyay. waxay dhahday sanad markii saas guurkeeni uga soo wareegtay uur ayaan qaaday leedahay oo waan dhalay. uurka waxay dhahday aad iyo aad maxay ugu rafaaday dadka walaac ku xanuunsanaya ahaayay dhahday. uurkii labaad sidoo kale. midkii saddexaad markii aan leeyahay dhahday waxaa bilaabatay in anigii odageygii aan isku dhacno aad iyo aad yani aan iskugu xumaano heer يعني meesha ugu xumeed ayaa isla gaarnay leedahay aniga iyo wiilka markaas i qabay. waxay leedahay aniga waxaan go'aan ku gaaray hadii aan ilmahan caloosheeda ku jiro ama aan dhalo waa hadii yani ifka ay nabad ku yimaadaan ilmihiisa aan siinayo uu ifuraayo. gabadhii waxay ka soo horjeesatay in wiilkii ay la noolaato. wiilkii gabadha wuxuu la noqday wax yani aysan rabin. aragtidiisii ma rabto in guriga hadii uu yimaado cunto uma kariso 24 saac buuq rabsho khaylo maamadiya u timid. xilligaasna gabadhan waxay ahayd qof walacay ahayd oo dadkii waxay isleeyihiin maamadu waxay isleedahay gabadhii amoo yani walaca ka keenaa waxyaabahan haayo way u timid oo waxay dhahday maama kaala aniga i raac guriga iigu imaaw maxay to guriga ila joog ilaa aad ka dhalaysid markii aad dhashid kadib gurigaaga u soo wareegso. laakiinse gabadhii war waa ay ka diiday islaanti maamadeed ahayd oo sodoodeedina ahayd oo waa ay diiday. gabadhii ugu dambeyn waxay soo go'aansatay oo soo istaagtay waxaan u baahanahay in lay furo. gabadha xilligan ay furiinka ee dalbanaysana uurkeedu waa yar yahay oo uur walac ay leedahay. gabadhii yani ninkii lama tusi karo gacan ka hadal ay bilowday dhowr nabar ay u geysatay way daqartay. xitaa waxay samaysay in ay biyo usoo karkarsato ay korka uga shubtay xitaa habeen way isku dayday laakiinse ilaahay ma qadarin oo ilaahay xaggiisa kama ahaanin oo way fashilmatay. maamadii gabadha hadday si walba u tuugtay si walba loo dejiyay xitaa waxaa lahay ninka wuu kaa tagaa wuu baxaa. ayadaa waxay tiri haddii uu baxaa xitaa aniga waxay dhahday ma joogayo gurigan anigaa ka tagaayo duurkaasaana galaayay tiri maalinkan soo dhalan cunugiina waa idinkeena. familkii gabadhan arinta ku dhacday aad iyo aad ay ola yaabeen maxaa yeelay dabeecad lagu yaqaanay ma aysan ahayn. gabadhan inta la qabana waa 4 sano sanadkii afaraad waa gabadha wixii la qabo. inta ka horreysay yani gabar iska caadiya oo normala oo dhaqmeyso ay iska ahayd. laakiinse cunugii saddexaad uurkiisa markii ay qaaday ayadii oo dhan waa isbedeshay dabeecad ahaan dhaqan ahaan ixtiraamkii way ka tagtay. waalid waaye qofkan ma taqaano qofkan waa ninkaagii ma taqaano daris waaye ma taqaano. heer waxay gaartay in markaas gacan ay ka hadasho. waxay dhahday ilaa waa in lay furaa haddii aanan lay fureenina wiilkaaga meedkiisa ayaa arki doontaa. hadda maamadii maxay samaynaysaa waa gabadhii ay yaraanteedii ayada soo kafaalo qaaday ay korisay ay wax bartay ay wiilkeedii la jeclaatay ay u guurisay aroos qurux badan ay u dhigtay ay banaanka dejisay ay ogaanaysay yani ayada oo markaas yani ka ilaalinayso in wiil kale uu guursado ama uu ku dheedheelo nolosheedii
kadibna nolosheedii rafaad iyo waxyaabo noocaas ay muteysato ay u diidaysa darteeda ayay wiilkeedii maamada ugu dartay. gabadhiina maanta waxay maraysaa heer ay leedahay wiilkaaga kow ayaan ka siinayaa, haddii kale waa inuu ifuraa. haddaba maxaa isleedihiin gabadhan intaasoo dhan wuu ka keeni karaa? sheekada walac way ka weyntaa. marka hore walac waayaa laisdhahaye oo walaca ayaa ka keenaya gabadha. haddaba walaaley qaaliga ah, yani sida laisku jiijiidayo si walba waa la yeelay, si walbaa loogu dejiyay, dhinac walbaa laga soo galay, si walbaa loo maslaxeeyey. waxaa la xitaa qof uur lahaa tahay ma furantid, mayay istaagtay gabadhii, ma rabay dhahday, maba rabo, ma furantid waa furantaa iyo waxaasoo dhan uma baahniyay tiri. aniga waxaan rabaa ilaa in lay furo. waaye haddii lagu furo xaggee aadaysaa? intee guri kuu ah? qof markaas la furay oo uur leh waxay u baahan tahay daryeel, ay u baahan tahay caafimaadkeeda la ogaado, cunuga caloosheeda ku jira caafimaadkiisa la ogaado. haddii aad dhashid qofku caawiyaa u baahan tahay, yani intaa umusha ku jirtid, xitaa markii aad dhashid oo kaleento caawinaad kama maarmaysid. waxaa kasii tegaysaa la dhahay 2 ilmo oo yaryariis ah oo aana waxba kala weyneyn, oo 2 jir ah iyo maxay ahayto 3 jir ah. ilmaheedana aad iyo aad u yaryaryihiin gabadhii. ilmahaaga fiiri, madaxooda ku sabar, ilaah subxaana watacaala wejigiisa ku sabar. haddii wiilkan aad dulmi ka tabanaysid sheeg, waa lagaa qabanaa, waa lagaa celinaa. haddii wax xun aad ku aragtay, haddii naag kale aad ku aragtay, gabadhii waxay taagan tahay aniga wax aan ku arkay iyo wuxuu ii dhimay midnaba ma laho, aniga waxaan u baahanahay in madaxayga laysiiyo. haddii aana laysiinayn gabadhii ay ku cagajugleynayso in wiilkan noloshiisii ay maxay ahayto, yani iyada ay baas u noqonaysa, amaba iyada ay u noqon doonto sabab. habaryartii waa ay fikirtay, waxay dhahday wax hadday dhacaan waxba lagama qaban karo, laakiinse ka hor haddii aaba awoodid in aad wax ka qaban karto, waxaa fiican islamarkaas in aad bedeshid haddii aaba bedeli kartid. maamadii wiilkeedii la hadashay waxay tiri, wiilkeygiio waan kuu duceynayaa, waxaan kaa codsanaa gabadhan inaa furtid, waa gabadheedii, waa jeclahay, in la dhibana ma rabo, waxay dhibsanaysana in lagu sameeyo, aniga raali kama ihi, iska fur, waxay ayada jeceshahay waayo midaas. gabadhii sida ayaa lagu furay. gabadhii way soo baxday, waxay aaday magaalada muqdisho, degmo ka mid ah ayay muxuu ahaaye aaday, xaafadaas oo maxay ahayto gabar ay saaxiibo ahaayeen, ayada ay deganeed oo markaas garoob ahayd ayadana, oo laakiinse caruur haysatay. caruurtaasna markaas aabahood yani banaanka ayuu jiray, isaga ayaa ilmihiisii soo biilan jiray. gabadhii ayay u tagtay, ayada ayay meesheedii la joogtay. markii ay sidaas usoo dhashayna waa ay imaaday ayadoo heeso cunugii yaraa oo xitaa 5 maalmood aanan dhalneen waayo inay soo qaaday ay maamadii u keentaa. waxay dhahday wiilkiinana waa kanaa, dalaaqdeeni intii ii dhineedna hadda ii soo raacsiiya, xur inaan noqdo ayaan rabaa. maamadii waxay dhahday maalinkaas waxay oysay, madaxeeda muggiisa ayay oysay, say u oynaysay dhahday heer waxa xitaa isdhahay tiri dhiigay soo ooyi rabtaa, ilinta inta muxuu ahaaye ay buux dhaafisay dhahday, dhabanadeeda korkeeda uu qoyay, dariskii oo dhan isku soo baxeen, lee tuugay dhahday, gar iyo jilib layga qabsaday, laakiinse minka ayaa istaagay dhahday, oo go-aankaygii waxna kama bedelin, wax yaroo jixin ima galinay dhahday gabadhii. subxaan allah, waa cajiib, waa wallaahi. gabadhii markii ay sidii istaagtay, maamada waxay dhahday waa ku baryaayay tiri, ilaa iyo 2 sano oo naaska ay kasoo maxay ahayto kasoo cabayso ii soo hay, markay naaska ka go'da kadibna ii keenay tiri, anaa kaa qabsanayay tiri, anaa inta u dhanay tiri, ballan waayay tiri, ma arkaysid jid adiga socodna markaaga hor imaan doonaan, yani heerka aan naceeb ilmahan aa gaarsiisay, yani maanta ayaa ii cadeysa ayay tiri maamadii. laakiinse gabadhan waxay dhahday ma heenayay tiri, habeen yani oo hadda kadib xitaa ma heenayay tiri, naaskayga aan sii iska dhaafay, dhicii caano u shubay tiri, caanahaaga siiso. heerkaasay gaarto. hooyo saas samaynaysa ama naxariis daradaas ku jirto ma jirta ayay idinla tahay, ilaa inay wax jiraan ma ogiye. sidii markay u istaagtay maamada waxay tiri, gabadhaa ma soo tuurtay dhahday,
dhabteedaan saartay tiri anaana kaa qaatay ilaahay waxaan kaaga baryaayay dhahday hadda kadib cunugan ka dambe in aadan dhihin oo aadan dhabtaada saarin oo hooyo aadan dhihin ilaahay kaaga baryay tiri maxaa yeelay sabab la-aan ilmahaygii ku dulantay leedahay waajibkii hooyanimana waa gudan weysay ilmahaygiina waa dayacday tiri adigoonan wax lagu dhimin lagu caayin rafaad lagu geysanin nolol qurux badanaa ku nooleed wiilkaygii dartaada ayaa muxuu ahay habeen iyo maalin u qaylinaya oo aan u leeyahay gabadhaan wax aanan ogeyn maa jiro oo ku samaysay adiga hadda saan ma go-aansatay waxay tiri adiga iyo adduunku waxaa kala heshiina leedihiin gabadhii sida ayay kusoo baxday gabadhan waxaa jira marka hadda waa sheekada wiil ayada ay hore isku jeclaayeen wiilkan ka hor guur ay ku heshiiyeen wiilka markii ay guur ku heshiiyeen gabadha maadaama ay maamada sidaas tiri maamada hadalkeedii ma jibinin laakiinse waxaa fiicneyd in ay dhahdo aniga wiil noocaas ayaan jeclahay maamadana maamo wanaagsan ayay ahayd sidaa inta ka aragno umana diidi lahayn gabadha waa lagu dari lahaa way qarsatay wiilkii gabadhan ayadoo la qabo oo mar walbo xiriir lasoo sameyn jiray ilaa iyo heer gurigeedii oo burburo ay soo dudumiso kadibna wiilkaas ayay guursatay markii ay dhowr sano isqabeen ay wax dhali weysayna wiilkii waa ay kala tageen maxaa yeelay maxaa laysku guursadaa horta in awlaad laysku dhalo awlaadaas ayaa layska raadiyaa mar walba inta haysata allah u barkay intaan haysaninna ilaaha siiyo marka dadkaan ma ahayn dad noloshoodiina bilow kasoo bilaabay qoftaan ayadoo nolol kala soo samaystay ee ninkaan noloshiisii kusoo biirtay familuu leeyahay familkiisii waa u diideen sidaasaa gabadhi lagu furay gabadhi waxay dhahday nin kalaa guursaday sabab aan yani munaasab ahayn amaba wax maala yani ama wax yani aan mudneen in lagu kala tago mar walba ku kala tagaynayay tiri 2 3 4 5 ma ahanay tiri mar walba guursaday tiri 6 bilood sanad kan ugu badanay tiri 2 sano waa kii igu yani ninkaygii ninka ka dambeeyay ninka ay yani caruurta u soo dhashay midkii ka dambeeyay kaasa ugu badnaa oo 2 sano isqabnay tiri inta ka dambeysay tiri 6 bilood sanad waa daalay tiri saanin banin waa aroosay islaantii sodooday waxay dhahday gabadhii waa ay geeriyootay ninkaygiina wuxuu guursaday dhahday xaas kale kadibna wuu baxay qurbo uu soo aaday sharciyo ka qaatay ilmahaygii iyo xaaskiisii dhammaan wuu watay oo hadda qurbaha ayay joogaan maantana qasaare ayaan taaganahay ayay leedahay oo waa qasaarsanahay qasaaradaasna waxaa ka keenaysaa waxay tahay gabadhaan qof adiga kusoo koriy inaad sidaas ula dhaqanto ma ahan midda kale qof adiga ku jecel oo ku baryaayo ooba ku jecel haddii aad ka tagtid meel lagaa neceb yaa tagaysaa meel lagaa jecel yahay haddaa ka tagtid meel lagaa neceb yaa mar walba aadaysaa soomaalida sideeda been way sheegtaa laakiinse beenta kuma mahmaado taasna waa run gabadhan gurigii laga wada jecel yahay ayada ayaa ka tagtay oo noloshaas ka doorbiday ninkiina dhaxu uga tagay ilmihii ma heeso ilmihii aabahooda watay naag kala hadda kursanayso Yurub ay ka joogaan oo ma heysata ayadana ilaa ay hadda wax caruur ay dhashay malaha oo sida ay adduunka u salafleynaysaa marka waxay idinka baryaysaa in qisadeeda aad ku cibro qaadataan asxaab badan ay ku cibro qaataan aan u soo duceysaan in ilaahay awlaad saalaxa uu siiyo cimriga dumarkana sidiisa meel ayuu ku eg yahay marka waxay leedahay ilaahay inuu isoo hogaamiyo adoon ii dhaqanayo ubad khayr qabana ilaahay iga siinaayo waxay leedahay sodohday habaryarteena ayadoonan i cafinin oo igu tufin ayay geeriyootay leedahay maanta adduunka aniga ayaa qasaaro ku qaba ayay leedahay marka walaalay qaaliga qisada haddii aad ka hesheen like tan oo saara haddii aan ugu cusubtahay subscribe intaba waa free marna ha ilaabin inaad kambaylka furto si muuqaal walba soo geli oo kugu soo dhaco inta muuqaalka mid ku kulmi doono. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi